nabadgelyada naxariista eebbe iyo barakooyinkiisu waxay idiin ahaadeen kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno xilligan iyo xaaladda magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. Magaalada Buuhoodle waxay leedahay taariikh dheer oo soo jireen ah, waxayna caan ku tahay dhacdooyin saameyn iyo mug weyn ku leh sooyaalka taariikhda ummadda Soomaaliyeed. Waa magaaladii uu duleedkeeda ku dhashay hogaamiyihii daraawiishta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. waa magaalo iyo deegaan ay ka soo jeedaan inta badan bahda suugaanta Soomaalidu ay ku tiirsan tahay ee Soomaalida dhexdeeda magaca ku leh. waxayna sidoo kale magaaladani leedahay magac ka fac weyn magacan, waxaana horaantii qarnigii 20aad loo yaqaanay Shaxda, waana dhul carrasan ah. waxayna sidoo kale mar lahayd ceelal biyo badan kuwaasi oo dowray dabayaaqadii qarnigii 20aad. magaalada ayaa waxay haatan dhismaheedu uu ku socdaa si xawli ah, waxayna la tartamaysaa magaalooyinka waaweyn ee dalkeena Soomaaliya. waxaa sidoo kale la sheegay inay ku sugan yihiin dad tiradooda lagu qiyaasay 80,000 oo qoys, kuwaasi oo siyaabo kala duwan ugu nool magaalada iyo weliba deegaanada ku xeeran. waxaana jira baayac mushtari, ururo dhalinyaro, kuwo isboorti, kuwo siyaasadeed iyo weliba kuwo haweenba. magaalada Buuhoodle ayaa waxay dhacdaa xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya. qaybta koonfureed ee magaalada waxaa maamula dowlad-deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. dhinaca waqooyi oo ah halka ay magaaladu sida weyn uga dhisan tahay waa Soomaaliya. sidoo kalena ma aha magaaladu mid kala qaybsan. qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka Buuhoodle ayaan kala sheekaystay taariikhda magaalada. waa kuwan Maxamed Faarax Aadan Cali iyo weliba Cawil Axmed. بسم الله الرحمن الرحيم. magaalada Buuhoodle waxaa la dhigay marka la soo qaado af Soomaaliga saxda marka la soo qaado 61 sanadood bay jirtaa. 1953 yaa la dhigay gamuunaalaha lagaga soo guuray. Buuhoodle sidii loo dhigay sidii baa loo yaal. taariikhdaas uu leeyahay ceelku waxa weeye marba taariikhdu noloshu say tahayba maanta Buuhoodle waad og tahay waqtiga la dhigay abqaale meel la yiraahdo tuulo laga dhigay aakhirkii Buuhoodle lagu soo noqdo. maxamed shacuur baa ugu horreeyay nin magaranaysa daarna ka dhisa dukaanna ku qabsada oo dega. markii dambe magaalay noqotay waabaa laga dhistay ganacsigii maartay dadkii ninba wuxuu haystaba waa lagu ganacsaday. asaaska Buuhoodle maanta taariikhdiisa waa halka dhismihiisa uu marayo. magaalada Buuhoodle ayaa waxaa ka jira horumar kala duwan. aynu ku horeynaa dhinaca isgaarsiinta ayay magaaladu ku horeysaa, waxaana ka howlgala shirkado kala duwan kuwaasi oo bulshada uga faa'iideeya adeegyo casri ah. maasha Allah dadku waxay u baahnayeen adeeg jaban qiimaha la geliyo raqiis ah. marka waxay heleen adeeg jaban baadna maalinta ka dambaysa bilbish ka dambaysa uu sii kordhaya macaamiisheedu. bishii oo dhan waxay ku hadlayaan $5 Soomaali oo dhan ilaa raasasay ilaa raaskabooni waxay ku hadlayaan $10 walba la soo hadlaya dibadda. haddii aynu eegno dhinaca caafimaadka ayaa magaaladu gaadhay horumar, waxaana dhowaan laga fuliyay magaalada Buuhoodle isbitaal casri ah kaasi oo fadhiisan doona sidoo kale dhakhaatiir aqoon durugsan u leh howlaha ay u qabanayaan bulshada. waa kan maamulaha isbitaalka Buuhoodle Health Center oo ka warbixinaya. isbitaalkuna waa isbitaal u soo koray deegaanka oo aan qiyaasayo dadku inay ku raysan doonaan oo waxyaalo badan u qaban doono oo baahiyo badan ay dareemayeen. waxaan qiyaasayaa madaxdeenu ilaahay ha la garab qabto dadaalada ay bixinayaan. waan bogaadinaynaa, waxaan rajaynayaa inay maskaxda ku hayaan horumarka deegaanka iyo sidii ay mar kasta waxa weeye qaybtoodii ay uga aadi lahayd bulshadana ay ugu hogaamin lahayd dariiq iyo wado ay wax ku samayn karto. geesta kale magaalada ayaa waxaa ka furan xarumo kala gedisan oo lagu barto caafimaadka, kuwaasi ay ka soo baxaan dhalinyaro kala duwan. ganacsiga magaalada Buuhoodle ayaa ah mid xawli ku socda, sidoo kalena waxaa magaalada safaro kala gedisan uga baxaan deegaanada ku xeeran. aynu ku horeyno suuqyada qudaarta iyo dharka oo ah goobaha ugu mashquulka badan. ganacsigu waa wanaagsan yahay. qudaartan qornaanagu basasha iyo kaabashka iyo baradhada iyo cambaha iyo waxa qudaarta
iyo qaleynka labada marka yaanyada iyo kaabishka iyo basasha waxay nooga timaadaa koonfur baradhada iyo waxaasna waxay ka yimaadaan Itoobiya marka way fiican yihiin oo nalaga gataa xaaladda ganacsiga ee Buuhoodle aad iyo aad u wanaagsan tahay waa magaalo weyn oo gobol ah oo imka horumarkeedu aad iyo aad u soo kacayo marka way wanaagsan waa carwo bilan waxaanu haynaa agabyo kala duwan oo fara badan oo dharkii leh oo shoppingkii leh oo gogashii leh oo dee adigu ay nooc isugu jira dharkii oo kala duwan waxaan helay marka alaabta waxaan ka diraa Thailand, India, Dubai, gobollada Soomaaliya meel walba waanu ka keenaa meel kastoo aanu shay wacan oo tayo leh ka helaynaba waanu ka keenaa anagu waxaan iibinaa alaabtii dumarka gaar ahaan shoppingkii iyo cadaradii iyo kareemadii iyo waxaan ku jaabadii dharkii waan wada iibinaa waxa marka aad iyo aad bay u fiican yihiin maasha Allah xaaladda magaalada waa fiican tahay iyo businesska magaalada aad bay fiican yihiin waqtiyada hadda lagu jiro sanadadii dambeeyay waqtiga aad kaan jiraan waa jirtay laakiin imka insha Allah aad bay fiican yihiin waxaan filaynaa in ka sii fiican doonto sidii hore ahaan jirtay inaya waa midho laga soo guray dowladka magaalada Buuhoodle midhaha inta waxa la siinayaa 5,000 oo shilin Soomaaliya ya aad u macaan midhaha noocooda waxa la yiraahdaa hob Buuhoodle waxaa xarumo ganacsi oo waaweyn ku leh ganacsatada Soomaaliyeed oo ka soo jeeda gobollada Bay iyo Boqol waxayna ka warbixinayaan ganacsiga magaalada iyo sidoo kale xaaladda ammaan ee magaalada Buuhoodle oo ah mid aad u wanaagsan bismillahir rahmanir rahim haddii aanu nahay ganacsatada reer Bay iyo Boqol Buuhoodle ku sugnahay artaydad nabad iskaga qabo meel artay barwaaga nabad weey sanadkan hadda waa iska wacan yahay sanad aaron ay barwaaga weey artay wax kasta alaabada ilaa sida dharka iyo kobaha wax kasta kaagna oo kala duwan suuqana suuq hadda artay sanadkan waa u wacan yahay gobolkana waa amnigeed aad boqolkiiba boqol waa gobolada Soomaaliya 18 gobol oo gobolka uu amni badan weey magaalada ayaa waxaa ka furan goobo lagu sameeyo agabyada kala duwan ee lagu qurxiyo guryaha sida sariiraha iyo waliba fadhiyada oo leh noocyo kala duwan aad iyo aad bay magaalada yacni u wanaagsan tahay aad baa lagu soo dhaweeyay ma garatay adigu iminka muddo waxaan joogaa 4 bilood meelahaas aan joogaa shaqadana adigu marka aan imanayay aad bay u liidatay laakiin iminka farsamooyin casri baan keenay ma garatay marka aad bay u wanaagsan tahay sidoo kale waxaa ku soo badanaya magaalada carwooyinka lagu iibiyo dharka noocyadiisa kala duwan kuwaasi oo si weyn u daboolay baahiyo kala duwan oo horey uga jiray deegaanka haddii aynu u weecanno dhinaca waxbarashada diiniga ah iyo midda baadiga ah ayaa magaalada Buuhoodle waxay ka gaadhay horumar la taaban karo dugsiga hoose dhexe ee Darwiish waa dugsiyada ugu faca weyn deegaanka waxaana wax ku soo bartay dad badan oo xilal kala duwan ka qabtay dalka Soomaaliya waxaana hadda dhigta arday tiro badan waa kan maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Darwiish oo ka warbixinaya dugsiga Darwiish Buuhoodle waa dugsi soo jireena oo da' weyn waana dugsiga ugu da'da weyn dugsiyada Buuhoodle dugsigani wuxuu shaqaynayay ilaa 1960 iyo ilaa maanta oo 2014 bishiisii 11 dugsigan uu shaqaynayay intaana marba dacfadka ka baxaysay marba dacfad buu soo saarayay dugsigan waxaa ka baxay dadka iminka runtii xilalka ka haya Soomaaliya iyo meelo kaleba ayaa ka baxay waxaan oran karnaa dugsigani runtii uu u barakaysan yahay degmadan Buuhoodle magaalada ayaa waxaa sidoo kale ka furan dugsiyo kala duwan waxaanu booqnay dugsiga sare ee House Secondary kaasi oo maalinta ka dambaysa la sii ballaadhinayo laguna kordhiyay qaybo kala duwan waxaana sanad kasta ka soo baxa arday tiro badan Sheekh Mukhtaar Axmed Faarax waa maamulaha dugsigan waxaynu ku sugannahay dugsiga hoose dhexe sare ee Hawd dugsigan hadda aynu joogno waxaa la aasay sanad dugsiyeedkii 2006-2007
waxa uu ka kooban yahay dugsigu markii hore uu ahaan jiray 4 sano ugu horeeyay sare kadibna waxaanu ku darnay primary dugsiga waxaa ka baxay 9 sanadood 6 dafcadood ayaa ka baxay. dhinaca kale magaalada Buuhoodle ayaa waxaa ka furan macadad diiniya oo tiro badan kuwaasi oo kaalin weyn dhankooda u buuxiyay bulshada deegaanka. macadka Al-Furqaan waxa uu ka mid yahay kuwa ugu caansan magaalada Buuhoodle muddadii furnaana ay ka soo baxeen arday kala duwan kuwaasi oo ka dhex muuqday bulshada. Sheekh Axmed Maxamed Samatar waa maamulaha macadka Al-Furqaan wuxuuna ka warbixinayaa qaybaha uu ka kooban yahay macadku. furitaanku wuxuu ahaa sanad dugsiyeedkii 2007-2008 isagoo xilligaa u bilowday xilli maartay uu bilow ahaa shan dhismo lahayn qolal kiraa ku jiray wuxuu furan yahay muddadaas ilaa iyo maanta aynu joogno sanad dugsiyeedkii 2014-2015 waxaa ka baxay ilaa intii 6 dafco 6 arday 6 koorsooyin baa ama galaas 6 sanadood ama 6 qaybood baa ka qaybjabiyay wuxuu ka kooban yahay 2 qaybood dugsiga sare isagu 2 qaybood ka sii kooban delin hore iyo qayb sabaaxi ah qaybta ugu xoogga badan iyo qayb habeenkii oo gelinka dambe ah iyo dugsi hoose dhexe oo isaguna galabtii ah intaas ka kooban yahay. waxaynu weli ku dhex jirnaa waxbarashadii deegaanka. magaalada Buuhoodle ayaa waxaa ka furan malcaamado kala duwan oo lagu barto quraanka waxaana si gaar ah ugu eegi doonaa malcaamada Ibn Cabbaas oo ka mid ah malcaamadaha ugu faca weyn isla markaasina laga furay deegaanka sanadii 1991 ilaa iyo waqtigaasina shaqaynaysa. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. معالي الأسد يوسف عود oo malcaamadan gacanta ku hayay ilaa sanadii 1994 ayaa ka warbixinaya sida loogu liibaanay. madrasadan waxa la yiraahdaa madrasatu tahfiid al-Qur'aan Ibn Cabbaas baa magaceeda la yiraahdaa. runtii madrasadani waxa la furay ilaa 1990 ilaa 91 inta way shaqaynaysay. anigu waxaan qabtay 94 baa la dhigay madrasadan waa muddo 20 sano intaas aan hayay gacanta ku hayay. runtii ma sha Allah waa laga liibaanay dafcado badan baa ka baxay inta madrasadan si joogto ah baa looga baxayay iyadoo maanta aynu oran karno ragga ugu badan ee dacwada islaamka ka wada magaalada Buuhoodle waa raggii ka soo baxay ama madaarista wax ka dhiga ama malcaamadaha kale haya ama dugsiyada wax ka dhiga sare dhexe maahida islaamiga. runtii waa raggii ka soo baxay halkan iyadoo rag kale oo badanina oo ka takharujayna ay jaamacado u doonteen dibadaha oo qaar xitaa ka soo noqday ay jiraan. marka madrasadu saas ay ahayd. magaalada Buuhoodle ayaa waxaa waxbarashada ay ka gaadhay heer jaamacadeed waxaana ka furan jaamacad kaalin weyn u buuxisay bulshada ku dhaqan gobolka Cayn oo markii hore ardayda ka soo baxda dugsiyada kala duwan ay jaamacado u aadi jireen gobolada kale ee dalka Soomaaliya iyo waliba goobo ka durugsan. macallimiinta wax ka dhigta jaamacadan ayaa kuwa aad aqoontoodu ay sareyso ardayduna ay si weyn ugu qanacsan yihiin. maamulaha jaamacadan Buuhoodle Professor Cabdishaafi Axmed Cali ayaan ka waraystay taariikhda iyo waliba dadaalka loo soo maray jaamacadda. jaamacadda waxaa la aasaasay sanadkii 2011 bishii 9aad saddexdeedii waxayna ku bilaabatay hab diploma oo suurtagelisay markii dambe in looga wareego habka digriga. jaamacadduna ay digri qaadato kulliyadaha kala duwan ee shareecada iyo BBA-duna ay furmaan. taasina waxay si fiican u hirgashay 4tii bishii 10aad 2012. hadda ardayda dhigata waxay ku jiraan
qaarkood sanadkii u dambeeyay sanadkii afraad ah insha Allah wayna qalin jabinayaan sanadka dhamaadkiisa haddii Alla idmo. sidoo kale waxa uu fariin gaar ah u diray dadka ka soo jeeda deegaanka ee gobollada kale ee dalka Soomaaliya u aadayo waxbarasho loogu keenay gurigooda. wallahi dadkaas waxaan kula talinayaa deegaankooda inay joogaan qofku deegaankiisa iyo gurigiisa meel ka fiican uu tagayaa ma jirto horumarka in deegaankaaga aad ka samaysaa fiican ardayga waxbarashada doonaya iyo ka soo qalin jabiya aqoon-yahanka iyo keena dhakhtarka iyo keena injineerka iyo keena caalimka waxaa la rabaa inay deegaankii ku soo noqdaan ayna horumariyaan oo waxa laga tabeeyo ee dibad laga raadinayo in gudaha laga helo. haddii aynu intaasi ku dhaafno dhinacii waxbarashada magaalada Buuhoodle ayaa waxa ay leedahay laba qalbiyood kuwaasi oo dadka deegaanka iyo waliba dunyadu ay ku diirsadeen. magaalada Buuhoodle horta guud ahaan waxay leedahay 3 riig oo mid hadda gacanta lagu hayaa labana waa laga faa'iideystay dadka iyo dunyada ku dhaqan gobolka Cayn si wanaagsan bay uga faa'iideysteen xilliyada adka aysan magaalada lahayn roobab isla markaana aysan diin deetan hadda lagu nagaaday ee meel kasta biyaha dhigtay ee dooga soo saartay. sidoo kale magaalada Buuhoodle ayaa waxa ka socda horumar kala duwan waxaana dhawaan laga hirgeliyay biyo gelin taasi oo gaadhay hadda qaar ka mid ah xaafadaha magaalada. halkan iga dambaysa ee hadda aan ku suganahay waa dhismaha la doonayay inay ku shaqeyso warshada biyaha ee la doonayay in laga hirgeliyo gudaha magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. waxayna noqonaysaa warshadani tii ugu horeysay ee nooceeda ee laga hirgeliyo magaalada Buuhoodle. sidoo kalena waxaa la filayaa in biyaha halkan lagu sameyn doonaa ay ka jabnaan doonaan qiimo ahaan kuwa kale ee ganacsi aan uga yimaada gobollada kale ee dalka Soomaaliya. magaalada Buuhoodle ayaa waxay sidoo kale leedahay garoon diyaaradeed oo loogu magac daray halgamaagii Soomaaliyeed ee Darwiish Ismaaciil Mire waxaana garoonkan hirgelintiisa kaalin weyn ka qaatay qurbajoogta ka soo jeeda deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn iyo waliba dadka deegaanka. waxaana waqtiyo kala duwan garoonka ka soo degay kana duulay madax iyo mas'uuliyiin kala duwan. Cabdiraxmaan Walaweyn oo ka mid ah mas'uuliyiinta gacanta ku haya garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuhoodle ayaa ka warbixinaya. falaydkani waa falaydadii baryaha mas'uuliyiinta iyo duulimaadadii noo imaanay garoonka halkan waa Ismaaciil Mire International Airport. waad aragtaan garoonkii meeshu maray waxyaabaha yaryar ka dhiman waxaa la rabaa sida ugu dhaqsaha badan loo soo bixiyo xafiisyadii iyo terminalkii ilaahaymo. wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. xilliyada barwaaqada ayaa caruurtu waxay dalxiis ahaan loo geeyaa goobaha ay indhuhu ku doogsanayaan. balliga Shangalle oo wuxuu dhinaca waqooyi kaga beegan yahay magaalada Buuhoodle waxaana kula kulmay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada oo halkaasi dalxiis ahaan u joogay sidoo kalena ku ciyaarayay dhaanto. daafaha magaalada haddii aad u baxdid waxaad arkaysaa waxyaabo badan oo ku gelinaya xasuus iyo weliba dhaqankii hore ee Soomaalidu lahayd. si kastaba magaalada Buuhoodle ayaa waxay sidoo kale leedahay beero ay ka baxaan waxyaabo kala gedisan sidoo kalena waxaa jira dad si weyn isugu howlay arrimahaasi muddo dheer. waa kan Faarax Xaaji Cabdi oo aanu ku booqanay beer uu ku leeyahay duleedka magaalada Buuhoodle oo ay ka soo baxaan dalagyo kala gedisan. waxaa ka baxa dhirta waaweyn nooc kastaba ha ahaatee waxa weeye camba lafka camba babayga iyo xamarta iyo dhir badan oo kala gooniya xanuunka dhir badan baa ka baxda. waa fiican tahay tijaabo badan way gashado wax aan ka bixin oo la beerana ma jiraan wax waliba waa ka baxayaan. intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii aanu kaga hadlaynay guud ahaanba xaaladda kala duwan ee dhanka waxbarashada horumarka caafimaadka ee magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. waa anigoo Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwiisha tan iyo kulan dambe
nabadgelyo.